السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed bacda salaan. maxay ahayd maanta waxaa hadlay warbixin soo saaray taliska loo yaqaano Afrikoon ee Mareykanka ah iyaga oo sheegtay inay iyagu dileen caaqilkaas ay ku dhufteen gantaalada. waxayna yiraahdeen waxaan la shaqeynaynay oo na tilmaamaysay nahagaysay dowladda federaalka. haddaba waxay isweydiin lahayd dowladda federaalka sidee bay u hagi kartaa maamulka Puntland oo shaqeyba lama laha, sidee bay iyadu ku heli kartaa warbixinada halkaas dhulka aagaas Sanaag ilaa Puntland? wada shaqeynba lama laha Puntland. anigu runtii waxaan arkaa Puntland inaan ka marnayn ay Puntland la shaqeynaysay, waayo marka dowladahan la shaqeeya oo maxay ahayd Mareykanka iyo ka mid yihiin wadamada kale oo la shaqeeya dagaalkan cali miskaad, Puntland bay la shaqeeyaan. maxay ahayd meeshay ku hagto bay ka shaqeeyaan, halkay ku hagto bay ka shaqeeyaan, iyadana xiriir toos ah la leeyihiin. dowladda federaalka iyo Puntlandna wax xiriir wada leeyihiin ma jirto, wax wada shaqeyna. dhulkaa waxaa ka jiraan Puntland iyo ilaa Sanaag wax ka jiraan intaas artigu degoona waxa la socdo ka warhaya waa Puntland oo ciidamadooda joogaan. marka anigu waxaan leeyahay hadalkaas waxba ka khaldan, waxbaa lagu qarinaya halkaas. inkastoo dowladda Puntland bay ka mid tahay federaalka, hase yeeshee waxaanu leenahay intii shar le ilaahay sharkeeda ha naga qabto. maxay ahayd wix bilaayadooda ilaahay ku celiyo, caaqilkaasna u duceeya ilaahay inuu naxariisto, inta ilaahay ugu dambi dhaafo, dembigiisa ilaahay inuu dhaafo u duceeya, oo inta ilaahay kaga jara dembi hadduu galayba hadday wax dembi jireen. maxay ahayd ummadda Soomaaliyeedna khayr baan u rajeynayaa. waddanku waa iska wareersan yahay wallah. waxaan madax ku sheega oo dhulka jooga ka taliyana waxaynu garanayno maaha, waa ummad wada qalloocan wada si kale ah. xasan shiikh hadduu yahayna sharkiisa ilaahay ku celiyo, ilaahay baa arka waxuu ka jari doona xaqdarrada haddii lagu dilay ninka islaameed. laakiin reer Sanaag waxaan leeyahay, reer Maakhir waxaan leeyahay hala tashado, marba qaylo lagu jiri maaye. hore waa loo la jiray dadka hore boosaso iyo boqolaal baa lagu laayay. asalkeeda horta waxay u baahan yihiin seeraha reer Maakhir ee tashadaan, dekedahooda dhistaan, maxay ahayd erbadooda dhistaan, wadooyinkooda dhistaan, oo dee noqon dad isku filan. mana caayi karaan, lamana dagaalami karaan dad ay hoos joogaan, waayo dekedahooday ka raranayaan, erbadooda ka dhoofaya. marka qof aad huran tahay see baad maxay ahayd waa dagaalami karta, lamana dagaalami kartid. qayladaana meel ku tegi mayso, waayo berita guryahooda tegaysa. marka waxaan leeyahay warsageli waa inuu tashadaa, waa inuu dhulkiisa u tashada usoo jeestaa. wax walba waa qabsan karaan. maaqa wax seexiyey dadka dhaqaalaha haya, maxay ahayd dhaqaalaha haysta, dhulkooda waa inay ku bixiyaan baan leeyahay. oo dadkooda ay dhibaataysan dekedaha u dhisaan, oo maxay ahayd erbadooda u sameeyaan, oo ay noqdaan dad isku filan dee dhulkooda wax kasta qabsan kara haddayba dhacdo. haddii wax dhibaatay dhacaan ilaahay dhibaataha inaga hayo ummadda Soomaaliyeed islaamka bogooda burcada isku mariyo. laakiin haddii wax dhacaan waa inay noqdaan dad deked leh oo erbood leh oo isku filan kara. waddadaas yahay un maaha. waa arkaysaa maamuladooda waa isu tashadaan iminka. maamulada waxay ugu liidatay galmudug waa taa iminka tashatay oo erbood dhisatay oo dekedeedii ku dadaalaysa inay dhisato iminka. marka waxaan leeyahay warsageli waa inuu tashadaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.